Asalaamu calaykum asxaabta ku xiran channelkeena Amisha Kitchen soo dhawaada. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe leh, haddii aad hore noola joogtay gambalelka taawo si uu kugu soo dhaco fiidiyogeena markaan hore kasoo gelino si dhaqsi ah. Maanta waxaan idiin wadaa asxaabay basal aan caadi ahayn oo aan ka sheekeyn doontiin. weligaa basal sidaan ma u samaysatay? Haddii aad basasha hore u nacbeed xataa waa hubaa inaad ka heli doontid haddii aad sidan u samaysato hadda kadib daawasho wacan. Waxaan halkan ku haystaa hal xabo basal ah, basal cad, basal guduud, waxaad haysato ka samayso. basasha sidaan u soo jarjaraya, aad u kala fogeynaya. Asxaabay basasha waa soo wada jarjaray. Hadda waxaan bilaabay inaan hal u kala dhigdhigo. Soo dhameeyay basashii. Hadda baaquligan waxa igu jiro 2 qaando yoogada. Waxaan ku darsanayaa qaando yariis oo cusbo ah, qaando yariis oo basbaaska boodada, qaando yariis oo toon shiidan iyo hal qaando weyn oo bur ah, sidoo kale hal qaando huruud. Si fiican ayaan isku walaaqayaa. Hadda waxaan bilaabay inaan ku soo ridrido basashii, huruudii iyo aan isku qasay iyo xawaajiyadii. Waan ku gadgadinayaa hal ayaan ugu bixinayaa baaquliga saaranaya. Asxaabay yoogadka waa yoogad dabiici ah, guriga aniga aan ku sameeyay, fiidiyogiisa hore u soo geliyay. Haddii aad hore u daawanin hadda dib u daawo. Wax cusbo laguma darin, wax macaan ma aha, wax dhanaan ma laha. Waxaa laga sameeyay caano oo keliya. Waan soo wada gelgeliyay. Hadda waxaan bilaabayaa inaan ku gadgadiyo rootiga shiidan. Rootiga shiidan sidoo kale guriga ayaan hore ugu sameeyay. Waan soo geliyay channelka, dib ugu daawo haddii aadan hore u fiirsanin. Qarash badan kaagama baahno, waa xabad rooti oo keliya ku samaysan gurigaaga marka u baahan tahay. Ku shiida blenderkaaga, aad u fudud yahay, si dhaqso leh ku samayso. Hadda waa soo dhameynay. Waxaan u gudbaynaa inaan dubano basasheeni. Saliidda zaid aysan kaaga karkarin si aysan kaaga wada guguban. Si tartiib ah saliidda ugu soo ridrida. Labada dhinacna si fiican ayaan uga dubayaa si ay qararab noogu noqoto. Si u soo carfayso ayaabaya ku sambuus inaad dubayso malaysa. Hadda waan kasoo wada bixinaa iyada dhan asxaabay. Maasha Allah, ka sheekeen male asxaabay, idinkana ka war doona jawaabta waa idinka sugaya. Sidan quruxda badan ayaa noogu soo baxday. Waa dhadhan dhameystiran. Haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaada. Fi amaanillah.